السلام عليكم. subaxdii markaan soo toosno aan hawlaheena aadna ka bani aadam ahaan waxaa maskaxdeena ku jira filashada waxaan kala kulmi doona dadka kale haddii ay noqoto goob shaqo goob waxbarasho ama suuq sida inayba isha ku hayaan nooca dharka aan xirannahay kadibna aan iska ilaalin xirashada dhar maalin ka badan annagoo ka baqayno sawirasho aan maskaxdeena ku sawiranay oo xaqiiqo aan jirin fiir shaarkan shalay ayuu xirnaa xaaladan lacala haddii aad sii baarayso waxaa lagu magacaabaa the spotlight effect macnaha sawirashada inuu toosh kugu aadan yahay oo adiga lagugu mashquulsan yahay muuqaalkaada iyo tasarufaadkaada kadibna aad u noolaato sidii inayba kaamera kugu aadan tahay taasoo ah miisaan la'aan tallaabooyinka aad qaadayso macnaha ila sawiro qof la yidhi meeshan soo mar kadibna 1000 qof ay ku soo fiirinayaan يعني حالك سيدان oo kale weeye marka ka hadleen xaaladan hadaan ka hadlayn laakiin xaqiiqada ugu qaraar nolosha runtii farxadana leh waa ma jiro qof ku mashquulsan fiirinta dharka aan xirannahay in aan isbuuc xirnay shaygan iyo inaan markii ugu horeysay xiranayno ahmiyad dadka uma lahan waxa aan xirannahay xaqiiqadu markale waxay leedahay waliba farxada leh qof walba waxa hor yaala wax ka muhiimsan nolosheena shakhsiga cid nagu mashquulsan ma lahan wajiganaga ama dharka aan xirannahay isku mashquulinayso qof walba noloshiisa ayuu ceyrsanaya xaqiiqada kale farxadda leh waxaan u malaynaynaa micnaha dadku in ay fiirinayaan sida aan u egnahay laakiin dhinaca xun micnaha inaan sawiranayno qofkan inuu naga aaminsan yahay in aanu qurxanayn sida inuu qofku sawirto kale dadku in ay isha ku hayaan xubin una jeclayn bini'aadamka inta badan hadda adiga haddii aad muraayad hor istaagto waxaa laga yaabaa inaad dhahdo indhahayga siday ogayiin kuma qanacsani sankayga ima cajabinin bishimahayga iyo wejigayga ima cajabinin kadibna suuqa markaad u soo degto oo aad magaalada u soo baxdo aad u malaynaysa dadku in ay fiirinayaan sankaada laakiin dhab ahaantii cid ku mashquulsan ma lahan adiga kali ayaa aaminsan waa maalin farxadeed xitaa dadku fiiri ma xasuustaan qalad ka dhacay waqti la soo dhaafay waxa laga yaabaa hadda adiga mudane inaad ka seexan la'dahay kelmad sanad ka hor afkaada ka soo baxday ama mowqif waji gabax ku soo maray aad mar walba soo xasuusanayso kadibna aad u malaynayso micnaha daqiiqadaas inaad taagan tahay waji gabaxaas laga yaabo sanad ka hor inuu ku soo maray laakiin haddii aan ku dhaha ka waran hal qof oo xasuusta ma lahan shaygaas aad ka seexan la'dahay shay dhacay micnaha isbuuc xitaa ka soo wareegtay dadkuma xasuustaan oraada caanka ayaa wax walba kuugu filan soona koobayso waxay dhahaan caamada shacabka yacni waa 3 maalin keliya halka adiga aad ka seexan la'dahay wax sanadee ka hor ahaa caamadu 3 maalin keliya ayay ku iloobaan wixii dhacay u fiirsada adiga qof ay bulshada annahna aad u hadalhayaan micnaha isbuuc dhan ay ku dhagan yihiin micnaha ay u muujinayeen inuu yahay shaytaan geesa leh muddo yar kadib yani xaalku waaba inuu waxba dhicinba micnaha wala iska iloobaya fadeexada ugu weyn waxay dhan caalamkan cumrigeeda waa 3 maalin keliya waxaan inta tacsida haddii aad u fiirsato tacsidu waa 3 maalin micnaha tacsida inta badan waa 3 maalin micnaha xanuunka geerida ehelka 3 maalin kadib wuu yaraanaya waxaan i'tiqaadka waajibka fiiriya islaamka haddii aad fiirsato waa 3 maalin keliya waxaan diyaafatu 3 أيام لا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه معناه قف كان مركو كو إيمانايو od martida uu ku yahay waad soo dhaweynaysaa laakiin 3 beri haddii ay ka soo wareegato wuxuu kula noqonayaa qof yacni waad dhibsanaysaa halkaasna waxaa laga yaabaa dembi inuu ka imaado shay cajiib runtii arrimahan markaad u fiirsato tusaale aan soo qaadana muujinaya in aanan adiga lagugu mashquulsanayn adiga naftarkada tusaalaan u soo qaadana micnaha adiga matalaya qaybtan masaajidda maalin walba dabcan waxaan kula kulanaa boqolaal qof oo aanan aqoonin naftada tusaale uga soo qaada mar kale weligaa talow isweydii su-aashan weligaa masjid ma ka soo baxday adigoo leh micnaha qofkii safka 5aad safka 4aad ama safka 3aad ama safka ugu dambeeyay ku tukanayay shaati aan qurxanin ayuu xirnaa ama labada dhagood mid ayaa dheerayd ama inaad micnaha ku baraarugtay aslan inuu sanka fin ku lahaa oo kale ama wajiga ay buro oga taalay mustaxiil sababtoo ah arrimahan ma arkaysid aslan kumana baraarugsanid ahmiyad weyn kuma lahan iskumana mashquulinaysid xaaladada adiga waa sidaas oo kale haddii aad arrimahaas tahay ogow micnaha cid ku soo fiirinaysa inaysan jirin halka boqolaalkaas qof micnaha mid ay masjidka tukanaya haddii aad mid u weydiiso mid walba micnaha si markii loo fiiriyo niyadda ay uga jirta micnaha qofkan ag taagan ama markii la rukuucayo kale inuu isdhaho yani lugahaada ama uu dhahaa farahaada micnaha ma fiicno ama xitaa sigisaanta aad xiran tahay oo kale haddii ay meel ka yara jeexan tahay micnaha qofkan agtada ku rukuucsan ama u malaya micnaha ama aad u malaysa micnaha sida niyadda uga jirta qofkan inuu adiga kugu mashquulsay ama lugtaada uu fiirinayo laakiin dhab ahaantii qof kugu mashquulsan ma lahan qof isku mashquulinayana ma lahan mar kale micnaha farahada sii ogi loo xataa may farayaxaas aadaan معناه قف اسكو مشغولنا يا ملهن إعادة اسكاليك مركالة
xitaa fiiri dhibaatooyinka nagu dhaco dhimashada micnaha qof aan jecelnahay gaar ahaan waalidka micnaha maalinka geeridu ay dhacdo waxaad u malaynaysaa noloshii inay dhammaatay noloshii inay istaagtay laakiin muddo kadib waxaad is arkaysaa adigoo qoslaayo halkan waxaan ka arkaynaa micnaha dhabtee sabarka micnaha waa fariin rabbaani ah oo nale daqiiqadahaas ugu horreeya adkaysta wixii ka dambeeyana adinkaaba iska iloobi aslan micnaha musiibadaas weliba ajirka lagaa siinaya micnaha ila sawiro shaygan haddii aad u sabartay haddii aad u sabrin laba goorrabood iloobi micnaha ila sawiro qof uu jecel yahay dhintay kadibna aanan sabrinoo aad u ooyey iyo mid sabray micnaha labadaba muddo kadib way iloobayaan laakiin midkan sabray oo xasbuna allah wa nicma alwakiil yidhi micnaha ajir ayuu ka helayaa xisaabsaday adigana ajirna ma helaysid laakiin sidoo kale qofkan isku mid ayaa tihiin maanta haddii uu qof aan dhahno shil hubin muhiima ku waayo allah nabadbadi dhammaanteen micnaha lug haddii ay go'doo kale ama gacan aan dhahno sanad kadib qofkaas haddii uu wariiri qaniino wariir ayaa qaniinay micnaha lugtaas go'an waxaa ka muhiimsan xanuunka wariiriga micnaha ma qiyaasi kartaa xaqiiqo kale waxay jirta runtii muhiima u fiirsasho leh bini aadamka uu la qabsan ogyahay duruuf walba micnaha mid bii ah haddii ay noqoto deegaan yani qof kugu cusub keliya duruuf kugu cusub keliya micnaha waxaad u baahan tahay waqti micnaha adiga haddii insha allah laa qadar allah duruuf aad la kulanto meel cusub wadan cusub shaqa cusub noocay ahaataba طبعا waxaad ogaataa maalmaha ugu horreeya inaadan la qabsanaynin laakiin haddii aad u sabarto micnaha duruuf shay noocay ahaataba xaalad adag haddii aad gasho isku day inaad u sabarto sababtoo ah muddo yar kadib يعني شيء sidaas ah wax kula noqonaya macnaha shayga dunkaad ugu jeceshay waa shay cajiib macnaha bii maanta hadii lagu geeyo dal isbuuca ugu horeeya waxaad leedahay cadaab macnaha igu celi meeshan ka imaaday laakiin muddo kadib meeshaas ayaa dal ku noqonaysa dhalmada tusaale ahaan aan dhahno waa waxa ugu xanuunka badan yani xanuun shay waxa weeye yaa allah aanan caadi ahayn waxaa jira orahyo macnaha inta badan la isdhaafsado ah dumarka inay dhahaan oo kale yani mar damba ma dhalaayo xanuunka foosha awgi laakiin muddo yar kadib يعني waxwal baadi ay ku soo noqonayaan qoftan waxay diyaar u ahaanaysaa macnaha inay uur yeelato mar kale muddo yar kadib tusaalooyinkaas oo dhan macnaha waxay muujinayaan mixnad walba ku soo marto saacadaha ugu horeeya haddii aad u sabarto in dhahaad isku qabato sidii macnaha dabaysha ayay ku dhaafi waana tan la dhaho yani geesinimada lagu sheegay aslan waa sabarka saacad macnaha haddii aad u adkaysato shaygan insha allah way ku dul dhaafi dhab ahaantii noloshan adduun haddii aad u fiirsato waxaad arkaysaa yani waxyaabo badan oo cajiib ah runtii oo yani haddii aad u iro fiirsato waqtina kuu soo koobayo waxyaabo badan runtii aad kala soo baxayso waana micnaha mucjizooyinka mucjiza aan noloshan adduun markii micnaha la leeyahay qofkan waa khabiir qofkan waa sidaan u fiirsashada micnaha waxyaabahan hadda aan ka hadlayno kale yani waa shay yani runtii cajiib ah mar kale sidaas darteed micnaha noloshan markaan ka hadlayno dharka adiga xiranaysa u xiro keli micnaha inuu adiga ku cajabiyey micnaha cawradada qarinayo cawradada asturayo arrinka cajiibka ma taqaanaan معناها در هدي أدو حرة تمان تانا شيء معين dadka kale si uu u cajabiyo micnaha shay ayaad xiratay dhar aad leedahay oo kale waxaa tiri shaarkan ama sarwaalkan markaan xirto dadka wuu soo jiidan arrinka cajiibka ah shayga adiga aad ku qanacsan tahay oo aad u xiratay micnaha qanaaco adiga kaa soo goday dadka kalena waa u qurxanaan micnaha waxay ku dhihi maanta si fiican ayaad u labisan tahay laakiin markaad u labisato adigoo isla micnaha shaygan dadka ayuu cajabinayaa dhab ahaantii dadka ma cajabinayo waana waxyaabaha runtii hal xiraalaha adag ee noloshan yani haddii aad u fiirsa adiga haddii aad ku baraarugto waad arkaysaa shaygaas adiga aad ku qanacsan tahood jecesha ilaahu mar walba maad xirnaatid isbuuc bilo maad xirnaatid dadka wuxuu u yahay macnaha shay qurxan laakiin maalinkaad dharka u xirato dadka ha cajabiyo dadkana ma cajabinayo adigana aslan waxaad u xiratay macnaha dadka ha cajabiyo waana waxyaabaha macnaha wax walba noloshan macnaha ka mid ah talaabo walbood qaadayso dabcan shay xaaraan ma samaynaysid haddii aad u samaysa dadka kale si uu cajabiyo weliga waxaad ku noolaanaysa noloshaas aanay miisaanka lahayn waana mid la dhaho dadka oo dhan lama raali gelin karo macnaha bini aadamka dhammaantii lama raali gelin karo haddii aad isku daydana intay ahaataba dadka inaad raali geliso waxaa muuqato yani weliga inaad ka dhackada ku noolaanayso wax miisaan ah noloshaada inaan lahaanaynin waxaan ognahay dhammaanteen qof walba oo naga mid inuu hal mar noolaanayo macnaha dhammaanteen hal nolol ayaan leenahay macnaha laakiin ila sawir haddii aad ku noolaato halkaas nolol ah haddii aad u noolaato macnaha in aad dadka kale dartood u noolaato halkan dadka kale darteed markaan leenahay waxaan ula jeednaa macnaha xaaladan aan ka soo sheekaynay dhar markaad xiranaysa inaad u xirato si lagu dhaa macnaha dharkaas uu xiran yahay dadka inaad ka baqayso inaad u malaynayso macnaha in isha lagugu hayo dhab ahaantina cid isha kugu haysa ma lahan macnaha noloshaadu inay tahay sidii aan dhahno qof qolka uu seexanayo la yidhi kamera ku xiran macnaha nolol cadaab ayaad ku noolaanaysaa nolol macnaha raxb waasic kuma noolaanaysid waxaad ku noolaanaysaa nolol adiga aad isxirxirayso halka ilaahay noloshan uu ku siiyey noloshuna ay tahay yani shaygaas ikhtibaarka
سيدة إلهي أكوير سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معناها نولشان وامتحان geeridu waa imtixaan noloshana waa imtixaan marka u noolow sida ilaahay kugu talagalay qof insaan xor mustaqil ah yani nolol karaama la ku nool mawduucan ana aad ku dheerayn intaan ku eegay Umar Inshaar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.